السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتك وحرين جنال كاركتسن يوتيوب كسود هذا البرنامج كمان السلام عليكم kusoo qisadan nin ayaa hadda ka hor waxa uu shaqo u doontay shirkad weyn shaqada uu doonayay waxay ahayd inuu xafiiska soo xaaqo yacni dhul xaaqe uuna helay shaqadii sheeg emailkaaga waxaan kugu soo dirayaa foomka laga rabo inaad buuxiso sidaas waxaa yiri maamulaha shirkadda waxa uu ku jawaabay malihi email computerna hadalkiisa bada waan ka xumahay haddii aadan lahayn email maba tihid qof jira sidaas darteedna kuma siin karo shaqada isaga oo niyad jabsan oo wuxuu sameeyay garalla ayuu iskaga soo baxay jeebkiisa waxaa ku jiray $10 oo keliya waxa uu aaday suuqa oo soo iibsaday 10 kg oo yaanyo ah waxa uu bilaabay iibinta yaanyadii isaga oo albaab garaacaya in ka yar 2 saacadood waxaa laga jibaarantay lacagtii uu geliyay ee $10 ahayd 3 jeer ayuu isla sidii sameeyay waxa uuna guriga la tagay $60 oo faa'iido ah waxa uu ogaaday in habkani uu faa'iido leeyahay kuna shaqaysan karo sidaas darteed maalin walba waa uu ka heli jiray waxa uuna u laaban jiray gurigiisa xilli dambe maalinta ka dambaysa lacagta waa ay sii laba jibaarmaysay yar kadib waxa uu iibsaday gaari gacan dana gaari xamuul ah waxa uu iibsaday xamuulo kale iyaga oo shaqaalihiisu ku qaadayaan yaanyada sano kadib shirkadiisa waxay noqotay shirkadaha ugu waaweyn ee ka ganacsada khudaarta waxa uu bilaabay in uu qorsheeyo qoyskiisa mustaqbaleed sidaa darteed waxa uu galay caymiska nololeed waxa uu wacay shirkadda caymiska markii uu weydiiyay inuu doonayo inuu galo caymis nololeedka ayaa gabadhii ka shaqaynaysay meesha waxa ay weydiisay emailkiisa si ay ugu soo dirto foomka laga rabo inuu buuxiyo waxa uu u sheegay inaan wax email ah lahayn iyada oo la yaabantay tiri adiga oo aan wax email ah lahayn ayaad horumarkan gaadhay bal ka waran haddii aad email lahayn ninkii xoogaha ayuu aamusay waxa uuna ku jawaabay aan ahaan lahaa dhul xaaqe